وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك واجيب أو بحلقة ورابشو واجيب ريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا inuu isagu sameeyay khibrad iyo waayo aragnimo uu ka helay guuldarooyinkiisa hore ama waxbarasho uu ka qaatay ama wax uu ka bartay guuldarooyinkiisa hore wuxuu ku qaatay go'aan sax ah inuu qaato sababtoo ah wuxuu ogaa dariiqu ku khaldamay wuxuu ogaa wadadii uu markii hore uu ku jabay sababtoo uu ka leexanaya hadda marka wuxuu ku yiri halkeebaad ka heshay khibradii iyo waayo aragnimadii halkeed ka heshay khibradii waayo aragnimadana wuxuu ka helay waxa weeyaan waa guuldarooyinkiisa iyo fashiladiisii hore uu ku soo fashilmay tusaale ahaan iskuulka maanta waad dhacday galaaska maanta waad ugu hooseysay sanadka teera marka lagu celiyo ama sanad marka lagu celiyo waxa laga yaabaa maalinka ku xigto inaad ugu sareysid marka inaad ugu sareysid hadda laga yaabo qofka galaaskii maanta ugu hooseeyay marka ku weydiiyo sideebaad u sareysay maanta waxa dhaasaa fashilkayga hore iyo guuldaradeeda hore baa ay bartay oo go'aan sax ah ku qaatay waxaad ogeyd meesha ku soo fashilmatay waxaad soo ogaatay galaaska markaad fadhiday xiisadaha macalinka uu fadhiyo inaad ahayd maqan joogaba waxaad soo ogaatay in macalinku markuu joogo aad cashirka u jeesan jiray leyl iska soo shaqeyn jirin wax diyaarin jirin imtixaanka markuu yimid aad saa ku dhacday haddana daldalooladii baad iska soo buuxisay xiisada marka la joogo suucan baad wax soo xaadirtaa ma googoysi xiisadii baad u soo jeedaa waxaad tahay qof soo jeedo marka taasina waxay inoo sahli kartaa inaynu khibrado iyo go'aan sax ah ka qaadano fashilkeena iyo guuldarooyinkeena hore inoo diidan oo inaynu hadafkeena ka rumayno ama astaamaha inoo diidan inaynu guusheena gaadhno waxa kamid ah waa wax dhamaanteen inaba wada haysto waxa ka ah cabsida dhamaanteen waa wada cabsanaa waxaan ka cabsananaa hal su'aal oo aynu weydiino maanta macalinka ku dhahano macalin su'aashaas iyo meeshaas ma fahmin baan ka wada cabsananaa sidee hadaba u rabnaa inaynu jaamacado iyo master iyo aynu diyaarno dugsi sare iyo aan sii gudubno hadii su'aashii dugsiga hoose aynu ku marinay aynu dhaafi doono balan ma tahay in cabsida saari doono insha Allah ta'ala sida qodobka ku xiga waxa weeyaan inaynu mar walba cudur daarano inaynu quusano cudur daar iyo quusashadu marka hore waxaan ka cudur daaranana waxay dhahayaan waxaan ka baqayaa ardadan faraha badan ee meesha fadhida macalinka su'aal ma weydiin karo waxaan ku saleynaynaa maadaama inagu arday aan nahay dugsi dhexe dhigato meeshaas aan ku qusanaynaa heerkan taaganahay baan ku saleynaynaa casharka maanta insha Allah waxaan dhahnaa arday badan baa fadhida galaaska ma weydiin kara macalinka gabadh baan ahay oo ka baqaya wiil baan ahay gabdhahan ka baqaya gabadhan waxa dhaasay wiilasha iyo gabdhaha oo ka baqaya marka cudur daarka beenta nafteena inagu aaminsanay quusashada aan ka quusanay macalinka ma weydiin karo waxa laga yaabaa inuu macalinku imaagaba bandahana waxa kamid ah dib u dhigista iyo wahsiga laylis baa la inoo dirayaa waxaan dhahanaa bari ka shaqeysa adama ka shaqeey maalinkii waxa laga yaabaa in talaada lagu diray talaada dama la soo gaaro adoo inta ka wahsanaysa ama dib u dhiganaysa isleed bari ka dhig saadama ka dhig may maanta iska daa saa u lahayd waxa laga yaabaa wahsigana inuu guusheeni inaga celiyo marka qodobada aan tixi doono waxaan rajeynayaa inaynu si wacan uga dharagsanaan doono aynu insha Allah ta'ala aynu meesha ka wada saari doono dhamaantood waxa kamid ah aqoon darrada qofku inuu dhaho waan guuleysanayaa haddana uunan aqoon baa uunan haysan tusaale ahaan inaad macnaheedu waxaadan aqoon u lahayn aad dhahdo waan ku guuleysanayaa oo wax tusaale maanta dugsi dhaxan inagu joognaa hadaad dhahday waxay jaamacaduhu dhigtaan ma intaan dhigto hadhowna ugu sareynayaayo bad ka guulgaaraya ama intaynu dhahano dugsiga dhaxan ka boodana dugsiga sanaan ka boodana jaamacad baan gudbanaa taasi de inooma keenayso inaynu sameeyno inaynu guuleysano sababtoo aqoon darra bay naga hayso base-kii kamaynu soo dhismin aqoontii waxaan ay ku guuleysanayno ma lihin seebaynu guuleysanayna markaa
inaad ka fakarto wixii tagay oo tusaale ahaan xiisada maanta aynu ugu hooseynay xiisadii baan ka fakeranaa inaad samaysato saaxiib xun saaxiibka xun waa saaxiib ku samaynayo inuu hoos ku dhigo in uu ku dhaho markaad guul dareysatid dhaho ku niyad jabiyo in uu ku dhaho war maahe waxaan inaga daayo kubad baan ciyaarnaa ama waan yar sheekaysananaa gabadhiina ay dhahdo inaga daa saaxiibka xun markaa wuxuu noqon karaa qof aad isleedahay qof xun ma aho micnihii laakiin guushaadii buu kuu diidayaa wuxuu insha allah oo qofku saaxiibka uu samaysanayo ha ka taxadaro mar walba kale waxay ku xiran tahay qofka galaaska kula fadhiyo waxa laga eegtaa qofka ugu xariifsan qofka waxa hadii aad ahayd maanta qofka ugu hooseeya galaaska oo tusaale ahaan macalinku markuu yeerinayo haduu ka gaarsiiyo kale cashirka uu ka gaarsiiyo wax ku dhaafi jiray hadaad ku xidhato mid ayadna uu dhaafi jiray saas uu idin wada dhaafaya saasadna ku hooseynaysaa laakiin hadaad ku xidhatid marka cashirka la wado ayadu u soo jeeday oo mar walba sameyn jirtay ka gaarsiin jirtay macalinka afkiisa la socon jirtay qalinkeeda isla socon jiray hadaad la fariisatay waxa laga yaabaa kii ku dhaafay ayadu qortay inaad ka daba qortay adiga waxa laga yaabaa marka maanta xiisadu ay dhamaatay in berri intaad buug qaadatay aad soo ka soo qoratay saasna cashirka waa ku haysataa berri hadii wax laga weydiiyo cashirka waa qoratay soo ku dhaafay oo hadii la doono hingaadu kugu adag tahayba cashirka saasaad ku haysataa marka aynu ka taxadarno insha Allah qofkaad kursiga la fariisanaysi qofka saaxiibka dhow noqonaysaan qofka aad malcaamada isu raacaysan aan ka fikir koowaad waxa weeye inaynu han yeelano hankeenu wuxuu ka turjumayaa guusheena hadduu hankeenu yar yahay de guusheenuna markaa way yar tahay tusaale ahaan mar hore waxa yidhi haddaad ku haminaysi kaliya inaad iskuulka kaliya aad dhamaysi kaa kaliya dhamaysay bes intaasaa guul adiga kugu filan intaa bes waan guuleystay baad leedahay qof wuxuu ku haminayaa wuxuu leeyahay quraanka xifdinayaa waxa la yiri qofka quraanka uu xifdiyo waalidkii hooyadii aabihii saas jannada ku galeen isagii xifdiyayna saas jannada ku galeen marka waxaan rabaa in aanu jannada galo waalidka jannada ay galaan quraankii marka hadafkiisu uu yahay kaasoo kale waxaan dhihi karnaa waa hadaf yar oo gaaban mise waa mid weyn qofka jannada higsanayo waa mid yar baa mise waa mid weyn waa mid weyn marka balan ma tahay in dhamaantiin quraanka wada xifdin doono aan ku hamin doono say waalidkeen iyo inaga aan jannada u galno insha Allah midka kale qodobka labaad inoo sahlayo inaynu guusha gaarno waxa laba ka ah inaynu isdhiiri galino inagu nafteena dhiiri galino maanta waa go'aan qaadasho horta inaynu go'aan qaadanaa markaas xamaasadeenu joogtay ahaanaysa haday go'aan qaadano mar walba maskaxdeenu ka soo guuxaya wax walba iyo ficil walba aan qaadano go'aankii maskaxdeena ku taagan saas daraadeedna waxa joogta ahaanayo siraheeni iyo xamaasadeena way kacsanaanaysaa qorshayaashii aad dejisatay sidoo kale ficil iyo inaad sameeysi rumaysasho ficil waa in marka hore aad rumaysnaantaa inaad rabti inaad quraan ka xifdidi inaad hamigaad adigu waxyaalaha aad dejisatay aad qoratay quraanka kaliya ma noqonaye waxyaalaha aad dejisatay aad qoratay waa inaad rumaysan tahay marka hore inaad qabanayso inaad ka inagoo maanta laga yaabo hadafkeenu uu ahaa inaynu iskuulka dhameeno dugsiga dhexe dhameeno ka sare jaamacadda inagoo hadda kii hoose joogno waa inaynu maanka ku haynaa sida qof guuleystay adigu aad isla quman tahay isku faraxsan tahay jeceshahay si aad u dhaqmaysi oo qofku uu ahaada qof isaga mar walba priority ay siinayo mudnaashiyaha ay siinayo aynu inaguna marka hore nafsadeena ka aaminsanaana aynu rumaysnaana inay inaguna hay guuleystayaal haday adigu aad is aamintiin inaad guuleysatay saasaad ku guuleysatay waa inaad sawirataa markaad guuleysatay see noqon doontaa sidee jawigaagu noqon doonaa marmar aad gashaa jawiga adoo guuleystay kaba soo qaad adoo guuleystay jawigii inaad gashaa ama oo gacanta ku hay naftaada ha noqon mid cabasho badan inaan mar walba nafteena gacanta ku hayno in aanu noqon wax walba meeshii loo dhaqaaqay ayna u dhaqaaqin laakiin nagu aan xakameynaa inaynu dhisniyadaada horumari oo dhisniyadaada tag oo ka qayb qaado xafladaha lagu dhiirigeliyo xafladaha dhalinyarada ee dhiirigelinta dhisayo maankaaga dhisayo
dhahsi aad filaysi in ay joogaan dad guuleystayaal sida aad ugu soo dayatay aduguna aad jeclaysanaysi ama aad jeceshahay ama aad ka dhex aragti hamigaagu inuu quseeyo xafladaha ku quseeyo adiga inaad ka qayb qaadatid oo aad tagti oo aad soo xaadirtid oo si ay niyadaadu kugu sii dhisnaato laga yaabo qof meeshaad u socotay gaaray maanta inaad dhahdo qofka meeshii uu gaaray cabsida ilaahay aan rumeysnaano oo ilaahay ka cabsano marka koowaad ilaahay isku xidhna marka labaad inagoo hawsheena iyo hamigeena iyo guusheena iyo meeshaynu gaarano adduun gaarano inagoo niyada ku haysano oo qodobaysan tahay haddana aynu ku dul wadno inaynu xag ilaahayna ku guuleysano oo jannadii aynan niyada ka saarano adduun ayna u ordin laakiin aynu mar walba maanka ku hayno inaan dhimanano in waqtigeenu laga yaabo inagu maanta xiigsanana 3 sano 4 sano kadib inaan laga yaabo in daqiiqadan aad qoraysi aad hamiyada sameeysanaysi inaadan dhaafeen ba laga yaabo waxaan rajeynayaa inaynu iyana maanka ku hayno oo dageerida aan la ilaawin waajibaadkiina saarnaa inagu dad muslimiin nahay waajibaadkiina saarnaa inaynan ilaawin oo mar walba aynu maanka ku hayno maadaama dad muslima ay nahay waajibaadkii la inagu lahaa aynu maanka ku hayno laakiin hadaad dhahdi quraankii waan xifdinayaa jannadan galaya laakiin wax kala sameyn maayo soon sameyn maayo salaad sameyn maayo waajibaad kala sameyn maayo quraankii ku dhaqmi maayo ana saan doonaa dadana quraanka iska akhrisanaya marka waxa inaga baahan wax walba guul kasta waxay ku dhisan tahay marka hore inaynu ku dhaqano kitaabka quraanka markaan ku dhaqano aynu u soconaa wax kale oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadow kawaabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaano wadankeena guul wacan cadow kawaabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaano wadankeena waa wadnihii jirkeena waraabinay dhiigo